daawadayaal ha ifiirsadayaal idayayaal agna ujeedayaal galaaskoo bii qabo miisiyayaal hadda camal waxaa iga sugaysiin maxaa waaye maswaahil maanteen anaan ii sheegaa saacadahan oo kale barnaamijka gabagabadiisa waxaad iga sugtaan in aan ku soo dhoweeyo wadaygayga saaxiibkayga abwaankayga maki xaaji banaadir burfula banaadir oo noo akhriyo wargeysyada iyo waxay qoreen ku soo dhawaaw maki xaaji banaadir adaan ku sugaynaa mahadsanid cabdi muriid dheere ajakis bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa mar kale iyo barnaamijkii wargeysyada caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan tv-ga caalamiga ee universal daawadayaal wargeysyada caalamka toddobaadba waxaan ku soo qaadnaa wargeysyo aan isleenahay kolkay indhaha mariyaan amaba ay akhristaan daawadayaasha wax badan ayaa uga efi doona amaba uga bixi doona haddaba toddobaadkan waxaan soo qaadanaynaa wargeyska ay ooto oynin adduunyo waa ahaatay qaybtiisii afraad daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa sheekadii ay ooto oo aan fari ka qodneen waxaana inaga go-an ayuu yidhi qoraha maqaalkan ay ooto ha oynin in aan u dhammaystirno daawadayaasha sheekada ay ooto wuxuu yidhi wargeyska ay ooto oynin adduunya waa ahaatay ay ooto waxay dalkeeda dib ugu soo laabatay iyadoo shaki badan buufis badan sidaas darteed ooto markii uu wax badan u ifay una baxay waxay telefoon u dirtay walaalaheeda ku bahda ah sida daadooy diinle kabiirow iyo dal nuurshe iyo dahabsoore afartooda waxay kala joogaan wadanka UK maraykanka Switzerland iyo wadanka qatar ay ooto kow telefoonka waxay kula hadashay walaasheeda daadooy waxay tiri waan ku salaamayaa walaashay waa walaasha ay ooto muqdishaan joogaa muddo bil iyo wax dheer ayaan caasimadeena ku sugnahay waxyaabo badan ayaan arkay hase ahaatee buufiskii uuna geliyey ustaad axmed naaji sacad inaysan waxba ka jirin ayaan kuu sheegayaa oo xaqiiqada dhabta ah ay tahay soomaalidoo dhanba inuu dhibta gaaray waayo waxay tiri waxaan dib u akhriyey suugaantii ay isku adeegsan jireen kaftan suugaameedkii ka dhaxeeyey axmed naaji sacad iyo xog ogaalka banaadir xiliyadii sagaashameeyadii oo ay dalka ka jireen amaba ka socdeen colaadaha sokeeye ayuu yidhi wargeyska ay ooto oynin adduunyo waa ahaatay ay ooto waxay dib u akhrisatay ayuu yidhi qoraha maqaalka suugaantii ahayd amaba su-aashii ahayd xamar waa la xumeeyey yaa xaal marinaya haddana waxay dib u dhegaysatay ayuu yidhi wareysigii ustaad axmed naaji sacad uu siiyey idaacadda BBC-da isagoo ku qeexayay in marka xamarweyne iyo baraabo dhibaato gaar ah loo geystay dalka laga cayriyey guryahooda la boobay gabdhahooda la kufsaday loo sheegay in ay soomaalida qayb ku laheen xuquuq ku laheen xaqna ku laheen hase ahaatee ay ooto waxay tiri haddana waxaan dib u akhriyay ay tiri jawaabtii uu bixiyey xog ogaalka banaadir oo ahayd xilliga waa nabadeey xaaladda waa iswalaashi xarunta markay ololeysay geedaha xaaluf noqdeen xamar naaji ma joogin kumana xaadir ahayn xilligii gaari gacmeedka in xamuul lagu qaado xanuun dhaabac la saaro loo xisaabo in geer xamar loogu baxayay xaawo wiilka xambaar xasan loorka u dhiib xuseen caagag taqaad intay gaaja na xoorin xabad yuusufna leefin xamar aan ka lugayno xaalka waa qixitaane abagta noo xerxeraay xilligii lalahaa barakicii xumaa oo xanuunka badnaa xiliyadaan ku sugneen xamar naaji ma joogin kumana xaadir ahayn ay tiri ay ooto warkaasi ayaa xaqiiqa ah xogta dhabtana waxaa lisi kara dhegaystayaasha ama daawadayaasha u maali kara qofka
goobjooga ku ah amaba jooga amaba xaadir ku ah goobta ay falka laga hadlayo ka dhacayaan bay tiri ay oto. sidaasoo kale waxay la hadashay walaalkeeda dahabsoore, waxay tiri siduu hadalka u dhigay ustaad axmed naaji sacad ma ahan arrinta, waxaa sax ah sida uu xog ogaalka u dhigay ee beesheenna keliya dhibaatooyin khaas ah looma geysan, beesheenna keliya lama gumaadin, beesheenna keliya lama xasuuqin, beesheenna keliya lama dhicin, beesheenna keliya lama kufsan, ee soomaalida oo dhanba way isdhibaateysay. dhibaatadii dalkan ka dhacdayna sakiir walaa kabiir qof kasta oo af soomaali ku hadlaya meeshuu joogo ayay oogu tagtay, shaksi kastana godkiisii ayaa biyaha oogu soo galeen, ayuu kusoo gabagabeeyey wargeyska ay ooto. ha oynin adduunyo waa ahaatay hormadiisii maanta. iminkana bogga wax ka baro suugaanta iyo mahmahooyinka. in baddeenna loo soo dhex dego dulmi la dhoodhoobay, khayraadkii dalkeenna nala dhaco dadkayagoo liita, bankimoon dushuu kala socdaa sirta ku hoos duugan, dunidana waxbay oo laba daadufanta xeebteena daa'iman dharaar iyo haween dalalka boowaya. dalkayaga allow noo xasili daa'im baa tahaye, dadkayaga iswaafaji allow daa'im baa tahaye, magaalada inoo deji allow daa'im baa tahaye, dabkashidan allow naga baktii daa'im baa tahaye, nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye, dembi dhaaf allow noo hibee daa'im baa tahaye, dalabkeenna noo fule allow daa'im baa tahaye, saan doonayno noo yeel allow daa'im baa tahaye, ducadeenna eebbow ajiib daa'im baa tahaye. waxaan ku soo xiraynaa 3 mahmaah. waxaan ku bilaabaynaa amaba tan koob. garaash xiran baabuur ma galo, ganfuur cabo ninkiisas gubaa, walaashaada haddii fadhi kugu salaanto see digaagana jiifas kugu salaamaa. intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa wargeysyada. dhinaca kaamarada waxaa iga saaciiday wiilkayga khaalid maki xaaji banaadir, anigoo ah buurfoole ayaa indhaha soo mariyey halkanna kasoo jeedinayay. intaynu toddobaad dambe isugu imaanayno hadduu alla idmo anagoo isku duwan, waxaan idinku dhaafeynaa nabaddiin nool kulanti ammaan allah iyo ammaana rasuul. mudanayaal, muwaadinyaal, mas-uulyaal, asxaabyaal, jiiraanyaal, dalka joogayaal ama dibaddiisa joogayaal, hooyayaal, abbaayayaal, awoowayaal, awootayaal, abshaxanyaal, abuulanyaal, dhammaantiina waxaan idin sheegaa qodobadii caawa aan idinkuga haynay barnaamijkii faaliyaha qaranka inuu intaas noogu dhan yahay. waa ilaa cabada leeya insha allahu. axadda dambe waa naga sugaysiin, aniga iyo dhammaan bahweenta faaliyaha qaranka ila wadda oo uu ugu horeeyo farsamo yaqaanka kaamariistaha aan daalin oo mar walba diyaar ku ah inuu barnaamijkan faaliyaha qaranka ou ka baaqanin. waa guuleed cabdi salaad qare guuleed yare. waxaa kaloo ka mid ah abwaan maki xaaji banaadir, cabdi maxamed jacaf, cabdi maxamed ilka case, farax cali wehliye, aamina macow cabdule, amran nakata, saaxiibkayga qaaliga ah cabdi khani tribul e. xoogaa waa naga xanuunsan yahay, wax barnaamij oo isagaaba xoogaa naga xanuunsan, allah noo soo caafiyo. iyo aniga oo ah